Taambuugu waa nooc ka mid ah tubaakada taasoo afka la gashado, taasoo dadka cuna ay ku tilmaamaan inay ka helaan firfircooni, balse ay dhinaca taalo dhibaato u leeyahay caafimaad ahaan, waxaana laga keenaa dalka Kenya. Taambuuga ayaa dalka ku soo batay 10kii sano ee ugu dambeeyay wuxuuna aad u saameeyay bulshada, iyadoo hadda walaac badan uu ka taagan yahay sidii wax looga qaban lahaa. Sadiiq Cabduqaadir Xuseen Daljir waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho ee taambuuga u aragta dhibaato hor leh oo soo korortay. Waxa aan weydiinay marka horeba waxa uu yahay taambuuga iyo cunistiisa waxa ay keento. Taambuugu waa nooc ka mid ah waxyaalaha maanka dooriyo oo daroogada ah oo la isticmaalo. Wuxuu ka mid yahay waxyaalaha qofka aqligiisa markuu isticmaalo ama uu cabo ama uu cuno aqligiisa jaanjo ku sameeynaayo. runtiina sida ogsoonahay dalkeena Soomaaliya sanadihii ugu dambeeyay wuxuu ugu soo batay si aad u badan oo dhalinyarada Soomaaliyeed noocyo kala duwan ay leeyihiin kuwa caadi ah oo shaqaysta bajaajilada ah ama dhalinyarada xataa wax barata ama iskuulaadka jaamacadaha dhigata qaar ka mid ah ayaa isticmaalo. aqliguna hadda waa wax qofka bini'aadanka muhiim u ah oo haddii aan fiirino dhanka diinta markii camalka ama salaada ama soonka lala imaanayo kalato diinta waxay leedahay qofku inuu yahay qof aqli leh oo wax kala sooci kara. mar hadduu qof aqligiisa suulo waxa ka baxayso qofka inuu wax kala sooco wax u kala saarnaadaan oo ilaaliyo wax Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo faray iyo wuxuu ka reebay. Baaritaano lagu sameeyay dadka cuna taambuuga ee ku nool Soomaaliya ayaa waxa u badan dhalinyarada gaar ahaan kuwa dhigta dugsiyada sare iyo jaamacadaha. Baaritaano kale oo dheeraad ah oo lagu sameeyay dadka isticmaala taambuuga ayaa lagu sheegay inay u badan yihiin gabdhaha. Maxay cunista taambuuga ugu badan yihiin dhalinyarada oo ay ku jiraan ardayda dugsiyada iyo jaamacadaha ayaynu weydiinay Maxamed Sheekh Isxaaq oo ka tirsan macallimiinta jaamacadda Al Hilaal. dhalinyarada waxa ku badiyo waa dhalinyaranimo. qofka dhalinyarada waa midka la jaan qaada isbedel kasta. hadduu fashion ahaan lahaa, hadduu yacni til la jar ahaan lahaa, haddii surwaal la jeexjeexan ahaan lahaa, wax alla wixii soo baxaba inuu sameeyo. dhalinyarada waa meesha keliya bulshada laga ataago haddii la dhaqan doorinayo, haddii maxaa la dhihi jiray la daroogeynayo intaba. marka taambuuga waxaan aaminsanahay wax loogu talagalay dalka in maaragtay bulshadeeda da'yarteeda lagu waxyeeleeyo inuu yahay. cid maanta maaragtay dadkaas ka kontrooleysa ama xakameynaysan aysan jirin. marka dhalinyarada waxa waaye target waaye, dad bay target u yihiin. haddii dhalinyarada laga ataagana hadda awooddaadi way dhimatay. dhalinyaro waa kuwii yacni waddanka dhisi lahaa, waa kuwii mustaqbalka ahaa, waa kuwii horumar laga, waa kuwii wax baran lahaa, waa kuwii yacni wax walba oo mustaqbalka dalkaasi ku saabsan dhalinyaradaas ayaa udub dhexaad u ahaan lahayd. xooggii dalka waa haddii iyaga laga weerarana yacni waa musiibo inteeda la eg. haddii way fiicnayd inaan leenahay maxaa la dhihi jiray nidaam xakameyn kara waxyaabaha waddanka soo galaya. lama xakameyn karo. problemka jira wuxuu yahay xuduudaheena waa iska open, wax walba la soo gelin karaa, wax walba la soo dejin karaa. hadee waxa waaye awoodii dawladdeena maaragtay ma gaarsiisna heer ay la dagaalanto waxyaabahaas noocaas ah. marka waxaan leeyahay waxa ku badiyay dhalinyarada kaliya waa da'da ay yihiin oo ah da'da u nugul in wax laga bedeli karo. ardayda iskuulada kuwa aan wax baranin cid horta controlsha oo ka war haysa ma jirto. ama kuwa wax barta waxa lagu ogaanayaa xarunta ay yacni imaanayaan ee wax ku baranayaan ayaa raadkoodii iyo sansaantoodii iyo macallimiintoodii oo indhahooda furantaha ogaanaya in barnaamijkaas ay maaragtay ku lug leeyihiin. saasaa markaan looga soo ogaaday madaarista iyo maxaa la dhihi jiray xarumaha waxbarashada looga soo ogaaday in baalkan taambuuga la yiraahdo ay dhalinyaradii cunaan. wiilal iyo gabdhaba waa la sheegay. masquuliga gabdhaha laga soo helay, masquuliga wiilasha laga soo helay, luuqyada laga soo helay. hadee meel kastoo jaanis oo haddii wax wanaagsan uu yahay lama dhuuman lahayn. waa wax lala dhuunto. wax lala dhuuntana waa wax xun oo bulshada aan maaragtay waxyaabo abuse-ka ama aan fiicnayn indhaha furan laguma cuni karo. Warbixin laga soo xigtay dadka ka shaqeeya nadaafadda dugsiyada iyo goobaha waxbarashada ayaa sheegaya inay ka soo ururiyaan tubaakadaasi musqulaha gabdhaha. waxaase la yaab leh maxaa u sabab ah inay cunaan hablaha da'da yar mustaqbalka ku leh dadka iyo dalka Soomaaliyeed.
maxaa keenay in gabdhuhu ay ka mid noqdaan dadka isticmaala taambuuga ayaynu weydiinay Dr. Faa'ise Maxamed Xasan oo ah gabar ku nool Muqdisho kuna takhasustay cilmiga caafimaadka. Dhakhaatiirta caafimaadka ayaa dadka cuna daroogada loo yaqaan taambuuga waxa ay u direen digniino xoog ah oo dhanka caafimaadka ah. Haddaba sidaan ognahay wax kasta oo daraagis ah saameyn ayay ku yeeshaan qofka isticmaala. Dr. Diinow Aadan Cabdi Nuur waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta ka howlgasha isbitaalada magaaladan. Waxa uu qabaa in taambuuga iyo shiishada isticmaalkooda ku sii kordhayaan dalka ay leeyihiin dhibaatooyin caafimaad. waxaa lagu faafiyaa baraha bulshada dhibaatada taambuuga uu geysto dadka isticmaala taas oo lagu muujiyay inuu aad u waxyeeleeyo afka gaar ahaan carabka ilkaha faruuryaha qaaxada mandhicirada waxaana xusid mudan in baakada ay ku jirto taambuuga ay ku dul qoran tahay digniin ah inta aad ka filayso wax ka badan inta aadan ogeyn ee halis ah si la mid ah digniinada ku qoran baakada sigaarka taambuuga waxyeeladiisa caafimaad ma ka mid yihiin in uu saameeyo maskaxda waxna u dhimo jinsiga ayaynu weydiinay isla Dr. Diinow saameyn waa ku leeyahay walow la sheego dadka qaarna in jinsigooda oo markii ay asaga ay cunaan ay ka daraan kuwana oo eber oo ka dhigo laakiin waxa badan sida badan dadka saameynta uu ku leeyahay saameyn uu ku leeyahay because waa daroogo kastana qofka jinsigiisa gasha saameyn way ku yeelanaysaa sida darteed waxaan leenahay dhalinyarada isticmaasha ha iska daayaan sababtoo ah jinsi ka sokow aqliyada qofkii dhaqaalihiisii maskaxdiisii intaba way isbedelaysaa oo saameyn ku leedahay sida darteed inta keentay inta ka ganacsatay inta isticmaashaba waan kala talinayaa in ay iska daayaan Soomaaliya waxaa marka hore dhibaato ku hayay qaadka sigaarka shiishada ama badeecada iyo tubaakada kuwaas oo maara loo la'aa waxaase hadda ku soo biiray nooc ka mid ah daraagada oo loo yaqaano taambuuga taas oo halis kale oo soo food saartay dhalinyarada soo koraysa haddaba sidee looga hortagi karaa faafidda noocan cusub ee muqaadaraadka ah ayaynu weydiinay Aadan Abuukar Shariif oo ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho taambuuga runaantii Soomaaliya markii la joogo dhalinyarada gabdhihii wiilashii zaid ay macnaha u saameeyay wax badan macnaha dadku wax baranaa goobi wax barashada iyo meel walbana waxa way zaid loogu helaa waxaan loogu hortagi karaa in macnaha sare loo qaado qiimihii lagu heli lahaa macnaha taambuugaas oo kale in sare loo qaado oo kale waa loogu hortagi karaa amin dadka ganacsatada iyo waaweynaa ama dawladda oo kale inay macnaha wixii limitation ay ku sameeyso ay xadido si macnaha wax badan ay u soo gaarin dalkii laakiin hadda meel walba marka fiiriso habriya gadata habri meel walba oo lagu gado dukaamada yaryar gado dukaamada waaweynaa gado marka sidaan loogu hortay karo waxa kale loogu hortay karaa waa ay gelin dadka in loo sameeyo goob wax barashada ay gelin laga sameeyo suuqyadii meel walba in macnaha wax ay gelin lagu sameeyo dadkii dhalinyarada waa mustaqbalka oo wixii dalka u soo baxay waa marka hadii maanta ay ku kacaan inay isticmaalaan taambuugi oo jaamacadii lagu isticmaalo iskuulaadkii hadhow mustaqbalkooda wuxuu noqonaa mid mugdi ah jiilkii macnaha ay dhali doonaan ama ilmihii ka soo bixi doonaan oo noqonaa ilmo aan caadi ahayn oo
corontal disorder waxyaabo badan inuu ku imaado oo jiinkooda macnaha oo caadi u naqan marka run ahaantii barnaamijkan aad u muhiim u yahay galmudug TV galmudug ee wada wacyigelinta marka run ahaantii waxaan ku gabdhaha walaalahay iyo wiilasha walaalahay ee hadda soo baxaya goobaha waxbarashada aada sida iskuulaadka iyo jaamacadaha inay iska daayaan taabuugan waa wax xun بديل أصلا كرة راديان وح كلا يكون بدشان وناكسن إنه يكون بدشان إن شاء الله كعصن الله والدين بدن وأن قيب كأهين عرورت هذا قوة استعمالات تنبوغا أيها هاتن كول عسن إن عرورت هذا أي قيب كنقدان قوة استعمال يتنبوغا ما دام مالين بمالين تقدم بيسا وضلك وكسي باهيو استعمال كتنبوغا دولة الدحاء الصومالية قارهان وزارة جناعسجا يورشدها أيها ضلك كم ممنوع إن لكانوا تنبوغا dabayaaqadii sanadkii 2018 ayay shay ma jirto wax ka dhaqan gala amarkaas Yuusuf Maxamed Axmed Galmudug TV Muqdisho